تعالى وبركاته halkaad nagala socotaan waa Fatxi Media Production barnaamijkuna waa barnaamijkii dhacdada hadahan oo kale khamiis walba aad kala socod jirteen Fatxi Media Production taariikhdana waxay tilmaamaysaa 16 January sanadka 2020 waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qodobada wararka ugu doorka saaka barnaamijka dhacdada Faysal Cali Waraabe oo shaaciye arrin foolxun oo uu kula kacay Muuse Biixi weerarkii ugu dambeeyay qarax shalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho wasiirka dawladda howlaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya oo is casilay xiisad ka taagan kaalkacayo kadib markii la diiday xilka qaadis uu sameeyay xaaf Abiy Ahmed oo shacabka la hadlay xilliga ay dhacayso doorashooyinka Itoobiya waxaad ku soo dhawaataan faahfaahinta qodobadaas aad soo maqasheen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe ayaa markii ugu horeysay shaaciyay arrin uu madaxweyne Muuse Biixi kula kacay xilli uu ku sugnaa xafiiska madaxtooyada qarax xooggan oo dhaliyay khasaare nafeed ayaa duhurnimadii shalay ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho si ay goobjoogayaal u sheegeen Fatxi Media Production wasiirka dawladda howlaha guud ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa ku dhawaaqay inuu xilka iska casilay maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Galmudug wararka soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegay in khilaaf hor leh uu ka soo cusboonaaday kaalkacyo kadib markii shalay madaxweynaha Galmudug uu xilka qaadis ku sameeyay mas'uuliyiin degmadaasi Itoobiya waxa ay May ama June qaban doontaa doorasho baarlamaan inkastoo ay jiraan walaacyo amni iyo kuwo farsamo waxa sidaas sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed intuu uu guda jiray booqasho uu axadii ku tagay dalka Koonfur Afrika halkaas ayaan ku saafmeereynaa waxaad nagala socoteen Fatxi Media Production intaan khamiistada ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida ay amaanaan